kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Boorama Cable soona dhawaada qof kasto fiidiyowgan la gareeya siina sheer gareeya waxaanu haynaa xushmada aad u ballaaran warbixinteenu waxa ay ku saabsan tahay dhaqaatiir Mareykan ah ayaa wadnaha doofaarka ku talaalay bukaan bani'aadana daqiiqadihii ugu dambeeyay ee lagu badbaadinayo noloshiisa markii ugu horeysay taariikhda caafimaadka ibnu aadanka dhaqaatiirtu waxa ay ku talaaleen wadnaha doofaarka bukaan daqiiqadihii ugu dambeeyay noloshiisa si loo badbaadiyo isbitaal ku yaala Maryland ayaa sheegay in uu wanaagsan yahay qofkii lagu sameeyay qalliinka loona geliyay wadnaha doofaarka inkastoo ay aad u adag tahay in la ogaado in uu qalliinku shaqayn doono waxaanay calaamad u tahay talaabo 10 sano ah baadigoob loogu jiray in maalin la isticmaalo xubnaha xayawaanka bedelka halkii la isticmaali lahaa xubnaha dadka dhaqaatiir ka tirsan xarunta caafimaadka jaamacadda Maryland ayaa sheegay in talaalka la sameeyay uu muujiyay in wadnuhu uu ku shaqayn karo jirka bani'aadanka ninka lagu talaalay wadnaha doofaarka ama khansiirka ayaa lagu magacaabaa David Bennett kaasoo ay daadiisu tahay 57 jir inkastoo xaaladda ninkani ay sii xumaanaysay ayaa waxa uu doorbiday ama uu go'aansaday in lagu tijaabiyo qalliinkani wadnihiisa loogu bedelayo kali doofaarka ninkan ayaa kadib markii lagu sameeyay qalliinka waxa uu si iskii ah u neefsaday isagoo ay ku xiran tahay mashiinka sambabada si uu wadnihiisa cusub u caawiyo dhowrka toddobaad ee soo socda ayaa noqon doona mid halisa maadaama ninkan Bennett uu ka soo kamanayo qalliinka oo ay dhaqaatiirtu si taxaddar leh ula socdaan dhaqdhaqaaqa wadnihiisa waxa jirta gabaabsi aad u weyn oo kamid ah xubnaha bani'aadanka ee loogu deeqay beerista waxaanay arrintaasi keentay in saynisyahanadu ay isku dayaan ama ay ogaadaan si loo isticmaalo xubnaha xayawaanka sanadkii hore waxa Mareykanka ka jiray in ka badan 3800 oo qof kuwaasi oo u taagnaa in wadnaha loo talaalo taasina waxa ay cadaynaysaa in baahida loo qabo wadnuhu haddii arrintani cusub ee ku saabsan wadnaha doofaarka ee bani'aadanka lagu talaalay ay shaqayso waxa jiri doona sahay aan dhamaad lahayn xubnaha doofaarka waxaase xusid mudan isku dayo hore oo talaalida caynkani oo kala ayaa la sameeyay hase ahaatee waa lagu guuldaraystay sababtoo dadka bukaanada jirkooga ayaa si degdeg ah u diidayay xubinta xayawaanka ee lagu talaalay waxaana xusid mudan in sanadii 1984 ilma aad u da'yar lagu talaalay wadnaha isagoona muddo 20 maalmood noola hase ahaatee markii dambe farqiga u dhaxeeya waqtigan dhaqaatiirta qalliinka ee Maryland ee wadanka Mareykanka waxay isticmaaleen wadna ka yimid doofaarka kaas oo lagu sameeyay tifaftirka hida socodka si ay uga saaraan sonkorta unugyadeeda ee mas'uulka ka diidmada xubinta degdega sanadihii la soo dhaafay saynisyahanadu waxa ay ku soo jeesteen xayawaanada doofaarka iyaga oo la socda idasidaha xayawaankaasi bishii September ee sanadkii hore cilmi baarayaal ku sugan magaalada New York ee wadanka Mareykanka waxay sameeyeen tijaabo soo jeedinaysay in doofaarka xubintiisa wadnaha lagu talaali karo dadka bani'aadanka waxaanay dhaqaatiirtu si ku meel gaar ah u isticmaaleen kaliyaha doofaarka taasi oo iyadu loo goliyay dad bani'aadana iyadoona tijaabadaasina ay aad u shaqaysay waxaanay tani dhalisay in tijaabadan cusub ee wadnaha doofaarka oo lagu talaalayo bani'aadanka halkaasi looga soo qiyaas qaatay arrintan ayaa dhaqaatiirta Mareykanku waxay ku tilmaamayaan horumar cajiib ah oo laga gaaray sayniska iyo caafimaadka aadanaha si kastaba ha ahaatee ninka lagu talaalay wadnaha doofaarka ee lagu magacaabo David Bennett ayaa waxa ay dhaqaatiirtu ay aaminsanaayeen in marka lagu talaalo aanu sii noolaan karin hase ahaatee qalliinkiisa kadib uu ninkaasi soo neefsaday balse weli lama oga xaaladda ninkani halka ay ku dambayn doonto iyo sida uu jirkiisu la qabsan doono wadnahani cusub ee xayawaanka doofaarka looga soo talaalay waa nuuxkadii oo idin la ismaqal dambe oo xiiso leh